السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي soo dhawaada meel walba joogtiin. Channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Xuseen. Maanta waxaan idin wadaa waa maxay dhagaxyaasha oo maaragtay ama qumankaaga dad infection ku dhacay dhagaxaan aad ku aragtay oo cadcad maxaa ku keeni kara ama wax loo yaqaano tonsillostoneska. Horta midda ugu horeysa waxa waaye tonsilska waxa waaye qumanka maaragtay sababeynta ugu yeelanaya jirto. Tonsilska ama qumankani waa qanjar oo halkan labada dhinac oo maaragtay throatka ku yaalo. Qanjarkani waxa uu ka ilaaliyaa infectionka oo dhanka banaanka dibadda ka imaanayo oo maaragtay qofka gudaha u galay. Marka waxay sameynayaan kind of infection protective ahaan waayo oo infectionka ka ilaalina. Markay arrintan ay dhacdo tonsilska markuu wuxuu noqonayaa heer wuxuu gaarayaa in uu maaragtay infectionkii uu ka xog badiyo. Infectionka markuu ka xog badiyo waxa ku dhacaya marka in uu caabuq ku dhaco. Caabuq markuu ku dhacana kadib inuu maaragtay asigoo idil dhagaxayntii ay soo galaan. Dhagaxantan marka waxa waaye bacteria baa soo daynaya. Bacteria markuu soo daayana waxa ay u noqonaysaa bacteria in uu daawooyinkii uu qofkii u qaadanayo uu iskaga ilaaliyo dhagaxantani. Laakiin stoneskan waxa marka biofilms wax loo yaqaano oo maaragtay in bacteria uu iskaga ilaaliyo difaac ahaan protection ahaan uu shield ahaan uu ka dhigto sidii uu maaragtay antibiotic qofkii u qaadanayo oo ay u noqonin maaragtay u burburinin bacteria idil. Tani haday dhacdo waxay ku noqonaysaa wixii in ay maaragtay stones oo dhagaxyaal yaryar oo cad in wax wasakh ahaan oo cadcad in meesha ka soo baxaan. Marka stoneskan mid kale waxa waaye waa calcium oo bacteria uu soo daynayo. Calciumka marka sida horaan u soo sheegay waxa wasakhda bacteria waaye. Marka sidee aad iskaga ilaalin kartaa tonsillostoneskan? Inta ugu gudagalin tonsillostoneska waxa waaye calaamadaha oo maaragtay qofka hadii uu caabuqo stoneska ama tonsilska oo caabuq ugu dhaca calaamadaha la soo bixi karo waxa waaye meeshii gudaha soo idil in ay guduud ay noqoto. Qofkii inuu maaragtay cuno oo idil ama cunowgii in cuntadii uu cunay in ay ku adkaato ama xanuun uu dareemo. meeshii markuu wax la qaayo ama wax cabay in ay sidoo kale xanuun ay ku noqoto. Sidoo kale waxa waaye in uu soo barro oo labada dhinac uu ka soo barro iyo qandho maaragtay qandhada wax keenaa waxa waaye bacteria oo meesha ku faafay. Marka arrimahan oo idil hadii qofka isku arko oo gudihi la fiiriyo waxa lagu arkaa in maaragtay dhagax ama wax oo maaragtay oo cad in labada qanjar ay fulaan. Marka arrintan haday dhacdo waxa u baahan tahay waxa waaye in lagu baaro dhiigaaga la fiiriyo infectionkaasi intuu yahay la fiiriyo oo bacteria intuu ku saameeyay. Mid kale waxa waaye waxa aad sameyn kartid ayaa marka waxa dabiiciga ah markaad guriga aad joogtid aad kula dagaaltami kartid iyo wixii oo medically daawooyin aad qaadan kartid. Dabiiciga waxa kamid ah waxyaalaha dabiiciga waxa kamid ah mid koowaad toonta inaad isticmaashid. Toonta waxa ku jiro a lot of antioxidants baa ku jiro. Waxa kale oo ku jiro a lot of antibacterial baa ku jiro. Antibacterial waxa waaye waxyaalaha antibiotic oo ka hortaga maaragtay waxyaalo natural oo antibiotic ahaan oo bacteria la dagaaltamaya baa jirto. Sidoo kale waxa ku jirta antioxidant inflammationka iyo waxyaalo badan bay ka ilaalinaysaa. Shayga labaad aad isticmaali kartid waxa waaye wax la yaqaano grapefruitka. Grapefruitka waxa waaye oo fruits oo maaragtay asagana a lot of things contain gareynaa waaye. Grapefruitka marka wuxuu ku fiican yahay waxa waaye antibacterial ahaan oo isticmaali kartaa halkaasna uu u fiican yahay. Shayga daawada hadaa oo soo gudagala daawooyinka aad isticmaali kartid waxa kamid antibiotic ku wanaagsan oo originalka ah. Dhakhtarkaaga la xiriir antibiotic wanaagsan oo original ah ha lagu soo qoro. Marka dhibkan haduu sii ziyaado xalka waxay noqonaysaa in qumankii idil laga saaro. Taas waa end point-ka oo qaliin ama waxyaalo lagu sameeyo qumankii idil la saaro. Hadii uu dhibkii daawooyinka iyo maaragtay waxyaalaha dabiiciga aad isticmaalaysid aad waxba ka qaban waayaan. Waxa kale ku keenaya waxyaalaha ku keenaya waxa kamid ah marka hadii aad qof cabitaan qabow badan cabitaanada qabowga ah waa inaad iska ilaalisid. Cunooyinka maaragtay ay u badan yihiin sokorta waa inaad iska ilaalisid ama macmacaanka waxa u badan waa inaad iska ilaalisid. Iyo maaragtay waxyaalo badan oo afkaaga hygiene waa inaad sidoo kale aad ayadan aad ku dadaashid. Kani oo tonsillostoneska qabo ama tonsillostoneska lagu arkaa marar qaarkood waxa lagu arkaa in maaragtay shirka afkooda uu bedelmo. Shirka afka wax bedelayo ama breathki idil wax bedelayo waxa waaye bacteria wuxuu soo daayaa gas oo loo yaqaan gas oo maaragtay afkii oo idil ama dabeel ama waxyaalo bacteria soo daynayo
oo maaragtay gaas ahaan ayaa jirto oo shiirkii qofkii oo idil ka bedela. asxaabi waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanidka barnaamijka fadlan meel walba joogtiin channelka kiiloweyna subscribe like share ka waxaan idin rajaynayaa sidaas iyo